isuduwaha wasaaradda maaliyadda ee gobolka Selel ayaa qalabka isboortiga ku wareejiyay isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Selel. Wareejinta qalabkani oo ka dhacday magaalada Xariirad ayaa waxa goob joog u ahaa gudoomiyaha gobolka Selel mudane Axmed Naasir Maxamed Xaashi. waxa kale oo munaasabadani ka soo qayb galay kusimaha gudoomiyaha degmada Xariirad ahna ku xigihiisa qaar kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka uqaal culimaa udiin iyo qaar kamid ah dhalinyarada degmada Xariirad gaar ahaan kuwa xiiseeya ciyaaraha. qalabkani oo ka koobnaa huga u gaarka ah kubadda cagta isu joogaha kubado iyo koobka loo tartamo. munaasabadani ayaa waxa ugu horeyn hadal kooban ka soo jeediyay isuduwaha wasaaradda maaliyadda mudane Cabdirasaaq Aadan Yuusuf. halka waxaan ku sidaa 6 kooxood oo kubad maxay soo idriiskoodii ciyaaraha koobkii iyo muxuu ahaayay kubadahoodii kuwaas oo ay ii soo dhiibeen aan wakiil kaga ahay marwo Samsam Cabdi Aadan wasiirka wasaaradda maaliyadda soo ay ku timi codsigiinii ahaa in aad gaarsiiyo wasiirka oo aad idinku diibteen waxaad iga codsateen inaad dhalinyaradaasi diriis ay kubadda ku ciyaaraan hadaan nahay wasaaradda maaliyadda aan idin keeno marwadu way ka soo jawaabtay inta idin hortaala iyo koobka ciidkaba way idin soo dhiibtay. waxa kale oo iyaguna halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyay dhalinyaro odayaal iyo qaar kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Saylac waxayna dhamaantood si barax tiran ugu mahadnaqeen marwo Samsam Cabdi Aadan waa wasiirka wasaaradda maaliyadda ee wasiirka darteed waxaan hambalyeeynaa oo isku duwaha waliba ciyaaraha ku hambalyeynaya kuubka magaca ugu magac daray wasiirka maaliyadda marwo Samsam Cabdi Aadan maanta oo maaliyadda ay tahayna waxyaabo badan oo shaqaale badan uu ka mid yahay ayay ka qabatay gobolka kulley in badan way la socotaa baan filayaa waxaan leenahay horta gobolku waa gobolkaagii wax qabadkan ay u qabatayna kulli waa waajib saarnaaye jazaakumullahu khayr baan ka leenahay. waxa kale oo isna dhankiisa mahadtalamida u soo jeediyay wasaaradda maaliyadda isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo dalxiiska mudane Axmed Maxamed Cilmi Nibri. waxaan ku xasuustaa ciyaarihii gobolada ee u dambeeyay gobolku wuxuu leeyahay laba diris iyo ku ciyaara sida caadiga ah oo wasaaradda ka diiwaan gashan ka dhigtay waxa naga bixisay wasiirka wasaaradda maaliyadda. geesta kale waxa goobtaasi hadal kooban oo mahadnaqa ka soo jeediyay gudoomiyaha gobolka Selel Dr. Axmed Naasir Maxamed Xaashi. wadara Xariirad aad baan idinku mahad celinayaa sida wanaagsan ee aad ugu heelantihiin dawladda. isku soo wada duubo qalabkani ayaa waxa uu ku soo beegmaya xilli dhalinyarada degmada Xariirad u diyaar garoobayaan ka qaybgalka tartan kubadda cagta ah oo ay ku loolamayaan qaar kamid ah naadiyada kubadda cagta ee ka jira degmadaasi Xariirad. waxaana qalabkani isla maanta loo qaybiyay 6 kooxood oo ku hirdamaya tartan loogu magac daray Samsam Cabdi Aadan Cup. tartankani ayaa waxa isla galabtaba uu ka bilaabmay garoonka weyn ee magaaladaasi Xariirad waxaana daafuray gudoomiyaha gobolka Selel mudane Axmed Naasir Maxamed Xaashi. maxamed Awaala Daahir Shinila News magaalada Saylac.